So 4 ways أعرف حدثان إن أنا تصو from this method to أضو استعمالي سد مريه الزبلك أقلين كرتيد مريه استكين أكتاعي كرتيد أو بي أكو فريسين كرتيد مسا مريه أضو كو دلو كل حردو كدقاقده مد أفراد وحنا قنيسة جيت كان قادسة عراك بيرسة. السلام عليكم كسر بعد قرية بيرتيسة magacaygu waa Sucaad waxaan deganahay gobolka Minnesota wadanka Mareykanka ah video maanta wuxuu ku saabsan yahay avocado. So avocado-daaneta 2 videos aan soo saaray, I think mid shala soo saaray oo gaaban anoo sida u sameynayay rab inaan tuso. It was a 30 to 50 second video. gabar walaashay waxay soo qortay soo dheer soo yar duub aan waan rab inaan soo duubo. So waxa hadarta video rab inaan tuso the different methods u beerin kartiin avocado. ujeedin meeshaan ku jira badana aniga hadaan mirahaanit araban inaan isticmaalo dhaqaa ku siin lahaay waan soo bixin lahaa waa tuur lahaay laakiin mirahaanit ma arkino mindida ha gaarsiinina. So waxaan hadda sameeyaa inaan markii avocado-da afiiqdid waxa 4 mid sameyn kartaa because mirahaanita in ay caleen ka soo baxdaa la rabaa ee geed weyn ee dhali doonto insha Allah. So meesha hooseeso ma xididka u maleynaysid meeshaas is always should face down. So 4 ways arab haddatan inaan tuso from this method to adoo isticmaalaysid mirihi azblak agalin kartid mirihi istakiin akataagi kartid oo biyo ku fariisin kartid misa mirihi adoo koob dhalo ku dhexrido ka dhaqaaqday mid afraad waxay noqonaysaa geedkana qaadaysaa caraak beeraysaa. So the 4 different methods are maanta inaan tuso waxay tahay shaqadaanita hore oo soo bilaabay and video-ga hadda taanaytana wuxuu yahay wallahi badana mostly it's going to be an update of the 4 different methods I isticmaalay. So method 1 aan bilaabay waxay tahay ziplock. So ziplock process kana waa easy. First step is wafiiqaysa kabacdi qadaanita cadaanka oo ma arkana gacmaha lagu tirtirto markii aad qadaysid isticmaalayna. So what I do is warqadana qaadaya aan biyo ku qoynaya. biyaha marka qoynaysid waxa la rabaa tissue ma arkana inuu qoyan yahay oo biyo oo saas uga daadinin. So ujeedin si fiican had u qoyan tahay markaasaan mirihian tanaan qaad doona aan ku laalaabaya markaas wataasa mirihi ujeedin markaas waxa gelinaysaa ziplock ana gelinaysaa neefta ka yar bixi markaas si fiican u xir markaas kabacdi markaas waa qaadaysaa dariishad iftiin laha dhigaysaa mise armaajada mise jikada counterka ugu tagaysaa. Every couple days bacda fur tissue paper ka taabo haduu ujeedid in soo qalqalalooyo gacanta le biyo kasta yar uu firfirdhay markana bacda u xir markaas meel iska dhig. So that's method 1. After 2 weeks sheekada sidaan u egtahay waxa rab inaan tuso geedkaneed waxa ka soo baxay hadda ujeedin amleena. So this is after 2 weeks of ziplock ee ku jirtay. So sidaan u egtahay xididka hoos uu ka soo baxay miraha koreetane ujeedin maxaa la dhahaa waxa ka soo baxay caleen dheer hadda mardhow ka soo dhalan doonto tana qaadaysiin caraak fariisinaysiin meesha hoose xididkan dheer
carrada hoos u galaya, and then this head part kore ee carrada ugu dabooleysiin saasay ku dhamaanaysaa. So this is method 1. Method 2 aan isticmaalo waxay tahay anigoo istakiin ka taagay. Haddii aan ii sheego kan over 1 month ago aan bilaabay koobkaaneetine, this is 2 weeks ago aan bilaabay, oo aan tissue paperka aan qooyay, aan mirihii oo avocadada aan geliyay, mirahaaseete aan kasoo horbaxay oo xidid weyn systemka haddeerta aan isticmaalayo. Markii oo aan avocadada ku fariisiyay biyihii inay avocadada ku dhex dhicin koobkii. This method aan isticmaalay, it took me over 1 month inuu xidid meeshaaneeta ay kasoo baxdo, avocadadii ay dilaacdo. All that process, koobkaaneeta every couple days kor u qaadayay, waan fiirinayay. Maalin dhaweeda arkay inuu xididka soo dheeraanaya, markaas waxaa ilaah mucjisadiisa de, because we never see like we don't try to look at waxa sida markii la beero sida u egyihiin. So this is one method every day ay arki kartid xididkaasiyada sida usoo baxaayo. So this is method 2. Part 3 waxay tahay anigoo avocadada mirihii wada qaaday oo koobka wada fariisiyay kulligood. Haddeerta meeshan waxay ugu jirto 3 avocado oo mirahoodii ah. So what happens is avocadada jaawa ujeediin way soo dilaacdaba, kanne hal isbuuc ku fadhiyaa meeshaaneete. Light ma u baahneen, every couple days biyaha lay ka daadinayay, biyo cusub lay ku shubayay. Avocados grow best in a tropical place. So waxaa la rabaa avocadada markii oo aad diyaar tahay markaa beeraysid, haddii oo aad rabin inaa biyahaaneeta iyo waxaaneetan inaa ku beerin, maxaa la dhahaa carrada aad gelinaysid meel fiican oo qorax la dhig, geedkaasiyata meeshuu markuu sii weynaanayana inaa hadhowtii soo qodin oo meel kale ay dhigin. Taasaan lagu talin lahaa insha Allah. So aniga kan galaaska ku jiro oo avocadooyinkaaneeta oo galaasyaasha ku jiraan waa sii sugayaa. Kan oo galaaska haddeertaan oo koobkaaneeta biyaha oo istakiinka aa surane, insha Allah waa sii sugayaa, hal isbuuc kalaa sii siinaya. Kanne insha Allah carraa ku beeraya. Let me show you how I do that. Because of qabowga dartiisa banaanka hadda dhulka kuma soo beeri kari, kumana beeri dooni insha Allah. Laakiinse idinka haddeertaan haddii Somali aad joogtiin mise Kenya, dhulka haddeertaan waa ku beerin kartiin, shaqo badan oo ma baahnaanayso. And then this is the xididka is down, and then markaasaa dhulka aan ku fariisinaya markaas. So caag kasta waa yara dheer yahay, so xididkii ilaa meeshaan camal u joogaa. Insha Allah markuu sii weynaanayana ma arkino caagan aan ka bedeli doonaa, kabacdiyaan carradasaan ugu daboolayaa. ujeedin way daboolan tahay. So idinkana ma arkina markii oo dhulka ku beeraysiin, hubiya le xididka oo hoos ka soo baxay inaa jebinin. Taas la isku day insha Allah. Koobka hoose ma duleelo, so biyaha kana ku shubaya, markaaseeta waxay noqonaysaa carrada duleelka hooska carradaaseeta hoos biyaha ka dhuuqayso, si fiican u qoynaysaa markaas. So insha Allah, this is the 4 methods aan rab inaan intuso maanta. Waa aragteen ziplock aan ku bilaabay for 2 weeks, mirihii way soo baxeen. Koobkaaneeta aan istakiin ka taagay, markaasaan ku fariisiyay. Ujeediin madaxii hore inay weli biyihii inay kor yaalaan. And then the other method is haddii sheekada inaa rabtid inaa boobsiisin, is to put everything in a cup. Marka aragti inay diyaar ay yihiin carrada dhulka gelin dhulka ku beeraysiin, marka ay diyaar ay noqnaan arkino dhulka ku beeri kartiin. So meeshaan video kusoo gabeynaya insha Allah. Ha iga iloobina, please make sure you subscribe and give me a like. Wa inoo maalin kale insha Allah. Mac salaama.